السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابنا عن جعلنا هي وايدين سلامي مال والبو أدونك الدعالة ساعات كجوكتان كسو دواذا برنامج كينا فاقداد عيارها وضبضا عين فوهينا وحا كميدا kooxda difaacanayso koobka Champions League ee Bayern Munich ayaa waxay soo gaartay guusheedii labaad oo xiriir ah kadib markii kulankii furitaanka Champions League ay 4-0 kaga soo badisay kooxda Atletico Madrid oo kusoo booqatay magaaladeeda Bayern Munich. kooxda difaacanayso tartanka UCL waxaana ciyaar aad u adkeyd oo ay marti ugu ahayd kooxda Ruushka ah ee Lokomotiv Moscow ay kaga soo gaadhay guul 2-1 ah. Bayern Munich oo kulankii hore guul weyn oo 4-0 ah kaga diiwaan gashatay Atletico Madrid magaalada Munich ay ku martigelisay ayaa waxay caawa iska xaadirisay wadanka Ruushka waxaana xilli horeba tababare Felix niyada uu gastay Leo Goretzka oo gool uu dhaliyay daqiiqadii 13aad oo hogaanka kooxdiisa ugu dhiibay kubad uu ka helay Benjamin Pavard, laakiin kooxda garoonkeeda joogtay ee Lokomotiv Moscow ayaa dagaal adag ka gashay goolka lagala hormaray waxaana qaybtii labaad ay la timid goolka barbaraha oo uu dhaliyay Antonio Maranchuk iyadoo dhamaadka ciyaarta ka hadhsan tahay 20 daqiiqadood balse 9 daqiiqadood oo kaliya kadib ayay Munich hogaanka ciyaarta ku soo laabatay waxaana gool labaad u saxiixay da'yarka Joshua Kimmich. Bayern Munich ayaa waxay ku dheelaysay shax ah 4-2-3-1 halka kooxda Ruushkana ay ku dheelaysay 4-3-2 ayadana. daqiiqadii 3aad ee ciyaarta ayaa uu goolhaya Nuur iyo difaacyadiisaba waxay mareynayeen in laga dhaliyay gool kadib markii ciyaaryahan Moscow oo ciyaarayay uu kubad dheer u soo dhigay saaxiibkiisa hase yeeshee uu awoodi waayay in uu gool ka dhaliyo. Bayern Munich ayaa kaga jawaabtay fursado uu helay Müller oo u dhiibay Lewandowski oo isaguna soo galay xeelada ganaxa laakiin waxaa ka qalloocday darbadii uu riday. gool Goretzka ayaa hogaanka u dhiibay Bayern Munich daqiiqadii 13aad waxaana uu shabaqa Lokomotiv ku hubsaday kubad uu Chorizo u dhiibay Pavard oo si awood badan u dhaafiyay goolhaye Lokomotiv Moscow. Bayern Munich oo awood badnayd qaybtii hore ayaa iska khasaarisay fursado ay ku dhalin karaysay goolal kale oo sabab ugu noqon lahaa in ay qaybtii dambe si nafis ah u ciyaarto laakiin umay suurto gelin. qaybtii dambe ayay kooxda martida loo ahaa ee Lokomotiv Moscow kusoo gashay qaab xoogan waxayna si degdeg ah ula dagaalamaysay kooxda Bayern Munich. 2 fursadood oo qaali ahayd ayay Bayern Munich heshay waxaana midda soo martay Kimmich iyo Martinez oo wada shaqeeyay halka tan kalena ay ahayd mid ay Gnabry iyo Kimmich iska kaashadeen balse difaaca kooxda garoonkeeda joogtay ayaa ahaa kuwa soo jiita. daqiiqadii rigooraha ayaa waxaa u istaagay Robert Lewandowski oo iclaamiyay in rigooro lagu galay hase yeeshee albitraha ayaa asigana ku dhawaaqay in ay tahay rigooro balse VAR oo laga soo xaqiijiyay inta rigoorada la ridin ayaa diiday rigooradii halka uu albitrihina ku raacay VAR oo uu diidayba gabi ahaan in loo dhigo Bayern Munich rigoorada. gool 1-1 ayaa laga dhigay ciyaarta. Lokomotiv Moscow ayaana la timid goolka barbaraha oo uu u dhaliyay Mirinji kadib markii uu kubad ka helay Zilozi. Bayern Munich ayaa 9 daqiiqadood oo kaliya ay ku qaadatay inay iska soo badasho goolkan oo ay mar kale hogaanka ciyaarta qabato waxaana kubad ka timid Javier Martinez anigana shabaqa ku hubsaday da'yarka Joshua Kimmich oo natiijada ciyaarta ka dhigay 2-1. ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay
2-1 ay guusha ku raacday kooxda Bayern Munich. Dhinaca kale, Inter Milan ayaa barbaro gool la'aan ah la soo gashay kooxda reer Ukraine ee Shakhtar Donetsk oo ay marti ugu ahayd. Kulankan oo tababare Antonio Conte uu shax adag ku soo galay ayaanay u suurtoobin inay libinta helaan kooxdiisa, iyadoo cayaartii horena ay barbaro 2-2 ah garoonkooda kula soo galeen Borussia Dortmund. Haddaba asxaabay, gruubkan ay Inter Milan iyo Real Madrid iyo Shakhtar Donetsk ku wada jiraan waxaa hoggaanka u hayo kooxda Shakhtar Donetsk ee ka soo jeedo wadanka Ukraine, ayadoo 4 dhibcood ku hogaaminayso. Inkastoo kooxda Real Madrid caawa dheerayso, haddii kooxda Real Madrid caawa soo badisane waxay geli doontaa kaalinta 2 ayadoo ka kormari doonto kooxda Inter Milan oo ayadana 2 dhibcood leh. Tan iyo intaa kulmi doono barnaamij lamid ah. Nabadgelyo.